السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله اسكورة مسيتين في عنتهن ما شاء الله تبارك الله. سود وادة إذن لا هاي واحد كسود وادة قلبي فرن نية فرن يا كسود وادة قلبي فرن نية فرن ما شاء الله تبارك الله. وحن إذن لا هاي اسكورة محاردهن يا ما شاء الله تبارك الله نكينا مانتا وحن آدينا حافظ أنصا إيغا ديرين حوغا إيجرتو marka insha Allah hadda meeshan quruxda badan waxaan isdhahay beerahan iyo walaalaha doogan ha kuula inda dogsadaan sida caadiga noo aheedba oon mar walba idinku soo duubi jiray. waxaan jeclahay meeshan maraba haddaan ba awoodo inaan awoodina ay daran haddaan ba awoodo inaan isla soconno haddii Allah idmo. marka ma sha Allah tabaarakallah soo dhawaad in leeyahay beerahan quruxda badan ilaahay wadankeena noogu sameeyay. wadankeena beeraha ka qurux badan ayuu leeyahay laakiin ilaahay wadankeena ha nooga dhiga nabad hana siiyo. nabadda aan haysana Allah noo siyaadiyo nabad wanaagsan oo lagu naaloodo oo maaragtay kala arag barwaaqo beeraha xoolaha abaarto hadda dhameynayso ilaahay nabad saano kala gariino amba cagaarkaan ilaahay xoolaheena noo siiyo. wadankii wuu nabad guuray abaara ka socoto walaalayaal abaar ba'ana hadda wadanka jirta laakiin ilaahay waxaan ka baryaa rabbi raxmaanka ducaadayaan la idoobin ducaadaha lagu wado. ilaahay marka meelahan arko waxaan soo xasuustaa wadankeeni sida uu u cadaadeen geedihii. marka waxaan dhahaa alla yaa ooskan xoolihii iyo maaragtay meelaha kuli dhimanaya listusaa idin sii. marka hortaan u duceyna wadanka insha Allah in ilaahay barwaaqay bashbash iyo sidaas ka wanaagsan nooga dhigo بإذن الله كريم. ودمدان دتك إسكالنا إلهي وحن وبريا إيجان سيدودا إنه إلهي ووضه. مركا الحمد لله سيتين أدين كسوم في عندنا ما شاء الله تبارك الله حافظ عن إيجاد ديرين سنة هراء إذن كوشيء أيان الصعداء. مركا حنسد حوالي علىها أد أيكو جعلين أن أدو جعشاي ها أقد عافيني أكل الدلحيسانو. مركا الدلحيسير أو قابن أو بيرها يميلهانا إسكاقا لحصعنينو إن شاء الله بإذن الله كريم. سؤال هذا إذن الله هاي meelahan beeraley waaye dadkan waxa xoolo dhaqato amba ribaadiisa u naqan anaga waa tuulooyinka yaryar. marka xoolo dhaqatada ayaa dhulkan joogto xoolahooda iyo waxooda iyaga halkaas isugu dhex jiraan. shirkadihii xoolihii waa isugu maaragtay beertii waxoodana waa isugu dhex yaalaan waxa laga kala doonaa meel kale malahan يا مركز ربادين وين ربلدنا وين قطر معنا باوركود يحودي هستان وحكستو مقالة ديالي آيال يحباديها لو تلقلوا ويالان مركوا فني وددان عادي إهن ما شاء الله فني وفني مركا الحمد لله إلهي نونا بديلا محد إسكاله أيغانا نبض أي هستان الله أسيادي أنا نبض بوحدو الله نسيو أو نكلا قارتو أو بلد إيباديبا roob allahna siiyo maasheeyo meel kasta beeruhu ay noogu baxaan. dadkii wadankii joogay waxaan leeyahay aan kula tali lahay tala waxaan sii lahay inay duceystaan ay maaragtay ku duceystaan in ilaahay maaragtay roob u diiyo ilaahay barwaaqo siiyo. abaartan ku daba dheeraatay waa dad muslimiina ilaahay wuu ka aqbalaa. marka inay abaartan ku daba dheeraatay ilaahay ay iska baryaan qulubtoodana ayagoo mideeyo oo nadiif ah ayaan ducadaas looga aqbali karaa. marka waxaan jeclaan lahay walaalaha Soomaaliyeed kulligood meel alla meesha Soomaali ka joogan gees ka gees inay cududooda mideeyaan isku yimaadaan is marxabeeyaan is jeclaadaan qulubtooda isu furaan dhibaatada iyo naxliga iyo maaragtay xumaanta iyo xasadkana iska saaraan iyo maaragtay uqdadaha ku dhex jiro oo meel qiimo aan la garanaynin ilaahu ka saar dadkeena rabbi raxmaano oo qalbigooda mideey aamiin ya rabbi. adiga idaawo doona insha Allah aamiin ta kugur aamiin ta soo dheh si ilaahay wadankan qof gooniya ma leh Soomaali baa iska leh wadankeena. Soomaali baa leh horaa loo yiri. marka meeshad ka joogto meel al meeshad joogto aamiin duca ilaahay wadanka nabad maaragtay nabad sii mar walba duceey mar baa ilaahay naga aqbali doona insha Allah. maadaama dad muslima aan nahay dadkuna waxa qurux badan haday dad muslimiin inay nadiif ka dhigaan calooshooda insha Allah bidmillaah karim. rabbi baryayna wax kale hadda waxa la yiri
haddii la yaabo yaasiinka wax kaloo awoodnaaba iska liito ilaahay wuxuu nagu fiirinayaa dembiyada la galay wadankeena laga galay waxa abaartaas loogu rogay ha loo toobad keeno rabbi raxmaanka ilaahay inuu maaragtay uu ka qaado dhibaatadaas Soomaaliya haddaan kasoo tagno intaas waa gubaabadii iyo ducadii wadankeena mar walbaba aan jeclaa inaan dadka ku gubaabiyo marka insha Allah anaga inta ku noolna waxaan ilaahay ka baryaa inaan maaragtay ilaahay nagu nabad yeelo dadkan aan noolnahay shartooda ilaahay naga qabto qeyrkooda ilaahay na waafajiyo meel kastoon adduunka ka joogno dacladiisa kullee qurbo dhan waa isku wada maaragtay hal doonay saaran yihiin wax qurbaba joogo meel kastoo joognaa laakiin gaali muslim hooy aba Allah nooga dhigo Allah shartooda naga qabto qeyrkoodana Allah na waafajiyo aamiin yaa rabbi yaa maanta waa maalinta ducada waa la aqbalaa waqtiyada qaarkood waqtiyada jeceliyo Allah ka aqbala ducada ilaahay inuu aqbala Allah kaso aamiin marka dhibaato badan baa lagu qabaa qurbaha naftirkeeda laakiin ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu ilaahay ayadana maaragtay dhibaatadaas naga khafiifiyo oo ilaahay awlaadda noo xiftiyo annaga ilaahay na xiftiyo maaragtay ilaahay nagu badbaadsho doontaan la wada saaran yahay wadanka haddaad joogtay inta haddaad joogtaba doonaa mar walba la iska saaran yahay waad maqlaysin wadankiiba waxa ka dhadhacayo laakiin rabbi waxaan ka baryaa waxa dhig xumada in ilaahay naga yareeyo oo ilaahay maaragtay oo nasri khayr qab inta soo dejiyo wax wanaagsan leh aan ka maqalno ee wadankeena iyo dhulalka aan joogno meel kastoo Soomaali joogto ilaahu ku nabad yeel ilaahu ku xifti ilaahu awlaadna xifti aamiin ilaahu maaragtay sharta naga qab aamiin ya rabbi insha Allah walaashay macaan hadduu ku soo gaaro maaragtay aamiinta dhinacaada ka dheh sii sheer garay waa duco qalbi ka soo go'day walaashiin oo maaragtay idinkugu duceynayso meel kastoo joogno inaan isu duceyno xaq ayaan isugu leenahay insha Allah joogan degan waxaan jeclaystaa inaan idinkugu duceeyo ku duceysano oo maaragtay waqtiyada ducada ijaabada la aqbalo waqti degan ayaan iska joogaa casira insha Allah waa la aqbali doonaa rabbi san ka bartay insha Allah bismillaahi kariim intaas ka dambo hadduu kusoo gaaro fiidiyowga waxaa kaloo aad kaaga codsanaya walaashay macaan ay walaalkay iyo habar yar waxaan aad idinkaga codsanaa idinkugu celcelin doonaa insha Allah bismillaahi kariim subscribe-ka hala ii saaro waa codsi hore idinkagama codsi jirin waa idinka codsi jirin laakiin saan idinkuma xeji jirin amba idinkuma dheji jirin 4,000 waa soo furay waad arki doontiin waa furan yahay subscribe-kayga 4,300 iga dhiman 300 qof walba gacantaada saar ilaahay gacantaha ku barakeeyo midigtaada Allah ku barakeeyo barwaaqe bashbasha Allah ku geliyo aamiin awlaadda Allah ku barakeeyo insha Allah videogan ku soo gaaro waxaad samaysaa subscribe-ka muhiim u yahay igu sheergaray asxaabta aad taqaanid kulligiin meel alle meeshaad joogtaan inta muslimiina khayr Allah siiyo inta Soomaaliya gaar ahaan Soomaalida sidoo kale khayr Allah siiyo subscribe-kaas waxaan idinka rabaa inaan 4,000 gaarsiisiin aad i dhaafisiin 5,000 iyo 6,000 iyo 7,000 insha Allah bismillaahi kariim meesha aan taaganahba adinka ay keentay rabbi ka sokow ilaahay yaa keenay Allah ma hadda iskale laakiin yaa maaragtay tiirarka aan ku haadayay adinka waa baalasha aan ku buubay aan dhahe waa adinka aad ayaa u mahadsantiin jazaakallaahu khayr subscribe-ka aad ayaan idinkaga codsaday like sidoo kale meel fog ayuu u gaarsiinaa iigu taagso like maaragtay saa igu saar comment qurux badan iyo qor khayr Allah ku siiyo iina si share garay ha iga xaastin waa codsi ku socdo qof kasta oo walaal ah hadduu youtuber yahay hadduu shicib yahay caadiya qof kasto ayuu ku socdaa codsigayga insha Allah bismillaahi kariim waxaan rajeynaa beri dambo inaad aan helo walaalayga quruxda badan ee walaalayga Soomaaliyeed wixii aan ka barta insha Allah oo ahay wanaaga ee dadka kala caawi jireen insha Allah ana igu caawi doonaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh